waxaan iskugu nimid muxuu ahaa dib u eegidda iyo dib u qaabaynta guddiga madaxa bannaan cutubiyadii ay noo soo gudbiyeen iyadoo sida qorshaha annagoo ka ambaqaadayna qorshe howleedka guddiga oo isku qaabeeyey in dib u eegidda dastuurka 3 qaybood loo kala qaybiyo cutubiyada 1 ilaa 5 hal mar in maaragtay dib u eegid lagu sameeyo cutubiyada 6 ilaa 9na dib u eegid mar lagu sameeyo iyo 10 ilaa 15na in dib u eegid markooda lagu sameeyo nasiib wanaag waxaa ah in muxuu ahaa taladii aan u gudbinay inay ka soo diyaariyaan dib u eegiddii cutubiyadii 1 ilaa 5 inay noo soo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegidda dastuurka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markay cid nagu soo gudbiyaan kadib waxaan maanta annagu marka iskugu nimid inaan 5 cutub aanu oo naloo soo gudbiye laga soo shaqeeyey inaan dib u eegno markaan eegnana dhowrkaa maalmood oo insha allah soo socda inaan ku dhammayno kadibna la ansixiyo markaas guddigu ansixiyana inaanu la wadaagno u gudbino bulshada Soomaaliyeed iyo maamulada kala duwan dowlad goboleedyada kala duwan oo dalka inaanu la tashigeedii u gudbino si markii la tashigaas kadib dib u eegid lagu sameeyo ayadana guddiga madaxa bannaan iyo guddigan iyo kulli ay arkaan guddiyada ku shaqada leh markaas loo gudbin doono maaragtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya si ay uga doodaan una ansixiyaan sharcinimadiisa waxa kaloo meeshaan maanta haddii alla yiraahdo aan ku daafuraynaa markii la dhameeyo markii insha Allah 5tan cutub la dhameeyo la ansixiyo ayadana sidoo kale inaan ku diyaarino shirkana loo kala tegin oo lagu diyaariyo 5 cutub oo kale oo loo gudbin lahaa guddiga madaxa bannaan inay soo muxuu ahaa dib u eegid ku soo sameeyaan iyo taladoodii iyo aragtidoodii ka bacdina sidaasayna shaqadaani u soconaysaa haddii ilaahay idmo waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed haddii la maqli jiray dastuur baa qabyaha iyo dastuurka dib u eegiddiisa lama dhamayn waxaan rajaynaynaa inaan ka kafaalo qaadno guddigan annagoo la kaashanayna insha Allah tacaala baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda iyo shacbiga Soomaaliyeedba inaanu dhamaystirno xilligii loo qorsheeyay haddii la yiraahdo inaan ku dhamaystirno marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa guddiga waxaan kula dardaarmayaa in muddada hawsha adag loo fadhiyo in la isxil qaado inaan loo kala tegin in hadday nala gasho xataa habeenkii la shaqeeyo si muddada loogu talagalay aan insha Allah ku lagu eebiyo dib u eegida dastuurka